magaalada london waxaa lagu soo gabagabeeyey shir madaxeed looga hadlayay ka hortagga cunto yarida ka jirta caalamka. ra-iisul wasaaraha britain rishi sunak ayaa sheegay inay bixinayaan 6 bilyan oo dollar oo horumarin ah, wuxuuna sidoo kale sheegay inay qaadayaan tallaabo wax looga qabanayo waxyaabaha keena cunto yarida adduunka. madaxweynaha soomaaliya oo ka qayb galay shirkaasi ayaa sidoo kale hadal jeediyey. haddaba waxaan eegaynaa doorka ay shirkadaha soomaalidu ka qaadan karaan cunto yarida soomaaliya. waxaana arrimahaasi aan ka wareysanay cabdirashiid maxamed saciid, maamulaha shirkadda dahabshiil oo ka mid ah martida lagu casuumay shirkaasi. saalimiin ayuu u waramay. shirka muhiimadiisu waxaa weeye culayska waxaa la saaraya arrimaha cuntada iyo nafaqada ku saabsan. waxaa lagu qiyaasaa 1 bilyan oo qof oo adduunka ku noolay inay gaajo iyo dhibaatooyin ay la kulmaan. marka shirkan kale wuxuu doonayaa inuu wixii waxaa wax lagaga qaban lahaa iyadoo layskaashanayo, ama ha noqoto dowlado, ama ha noqoto hay-adaha samafalka, ama shirkadaha ganacsataduba ha noqotee wixii layska kaashan karo arrimahaas in ayaa lagaga hadlay. muhiimaddu waxay tahay sidii loo yarayn lahaa macluusha ama gaajada caalamka oo dadka aanay cunto la-aan ugu dhici lahayn. sidee ayaa is leedahay waa lagu hortegi karaa marka in caalamka ay macluuli ka dhacdo? horta runtii caalamka runtii dhibaatooyin badan baa ka jira. mararka qaarkood hawadan isbedeshay lafteedu qayb bay ka tahay cuntada. dagaalada ka socda meelo badan oo adduunka ka jira, oo weliba dagaalka nimanka Ukraine iyo Russia wuxuu aad iyo aad u saameeyey cuntooyinkii ka bixi jirtay. cimilada saamaysay, dhibaatooyin kale badan baa jira. waxaasoo dhan waxay keentay in cuntadii adduunka qabanaysay ay yaraato, ama ay aad u qaali garowdo, ama dad badan aanay awoodin dhaqaale ahaan oo gaajadu markaa ay sii badatay, ama cuntooyinka nafaqada lahaa ay yaraadaan. taas baa markaa dad badan oo adduunka ku nool, weliba wadamada Afrika u badani, ay dhibaatooyin badan ka soo gaadhay dagaalka Yurub. shirkan waxyaalahaasaa la doonayaa in la yidhaahdo maxaa wax lagaga qaban karaa, maxaa wadamada loo tari karaa, maxaa cimilada isbedeshay technology waxaan la yidhaahdo loo isticmaali karaa. waayo imanka beeraha iyo waxyaalahaas technology qayb bay ka tahay. waxaad soo hadal qaaday isbeddelka cimilada oo durbaba saamayntiisa laga dareemayo guud ahaan Soomaaliya. marka maxaa laga qaban karaa maadaama arrintani arrin cusub ay tahay oo dhibaatooyinkii horey u jiray kuwa ku soo kordhay ay tahay? inkastoo wadamada Afrika aanay ka mid ahayn dadka cimilada dhaawaca badan gaarsiiya, wadamada warshadaha laba inta badan dhaawaca badan gaarsiiya. cimiladaase daweyn lala noolaada wax kaloo la qaban karayaa ma jirto. waa in laga diyaar garoobaa wixii laga diyaar garoobi karayo. oo daalad badan baa imika dhulka Soomaalida ka dhacay, waad ogtahay. abaaro xun baa ka dhacay hore oo meelaha qaar laga yaabo inay saameynteedii weli sii nooshahay. ilaahay naguma keena qaar kale laga yaabo inay timaado. waxaasoo dhan waxay u baahan tahay diyaar garowgeeda. Soomaalida waxaa kaloo loo baahan yahay inay ka shaqayso sidai wadankooda wax uga soo saaran lahaayeen, inay badda ay kala soo baxaan cuntooyinka ay awoodaan. oo xooliba adiga ogaa beriga dhoweyd dhaawac badan baa kusoo gaadhay. waxaa jira kala duwanaansho farqi maaliyadeeda oo markaad caalamka fiiriso amaba xataa waddan kasta gudihiisa ah ay jiro. farqigaasi in la yareeyana waxay qayb ka qaadanaysaa in sugnaanta cuntada laftirkeeda horumar laga gaaro. arrintaasi wax loo qaban karaa ay kula tahay? horta adduunka weligeed way ka jiraysaa qof lacag leh iyo qof aan lacag lahayn meel jira, iyo qof maaragtay xanuunsan iyo qof caafimaad qaba. weligeed way jiray inta la nool yahay. dagaal iyo colaadina way jiraysa. waxaasoo dhan waxaa weeyaan laakiin in laga diyaar garoobo qof walba wuxuu qaban karayo. shirkan haddaynu kusoo noqono wuxuu doonayaa in wadamada soo koraya ama wadamooyinka dhibaatadu ay haysato ay maaragtay caawiyaan. imika dowladda Ingiriisku waxay ku dhawaaqday saad la socotay ra-iisul wasaaraha markuu hadlayay lacag 100 milyan oo dollar ayaan wadamada Soomaalida ay kamid yihiin aan ku caawinaynaa bay yiraahdeen. marka waxaas oo dhan wax la doonayaa in la iska kaashado. qasab Soomaalidu dee waa inay dagaalada badan ee wadanka meelaha qaar ka socda ay joojiyaan, culayska ay saaraan, nabadda cuntadooda ay raadsadaan. wadamo badan baa horumaray. iminka Ethiopia kale shirka waxay ka tiri qomandadii dibadda waanu joojino annaga waddanka kala soo baxnay bay yiraahdeen. bariiskina waanu joojin doonaa annaga bariiska abuuranayna bay yiraahdeen. way bilaabeen. Soomaalidana taa mid lamid ah u taala inay gacmaha is qabsadaan oo ay wixii wada qabsan karayaan meel walba qabsadaan oo wadankooda u soo jeestaan. shirar hore ayaa jiray oo shirarkan oo kale ah oo looga hadlayay sugnaanta cuntada. marka kan muxuu kaga duwan yahay aad isleedahay kuwii horeeto? wuxuu kaga duwan yahay runtii marka waxaad moodaa in wadamadii dhaqaalaha badnaa ay doonayaan lacag badan geliyaan. shir baa isna soo socda oo kan gogoligu yahay oo Imaaraadka ka dhacaya oo isna COP 28 la yiraahdo. shirkaas isaga laftiisu wuxuu culayska saarayaa arrimaha hawada isbedeshay ayaa gaajada lafteeda qayb ka ah. haddii dhirtii ay go'do, haddii roobabkii meelihii looga baahna aanay imanin, ama roobab khasaare keenaya uu yimaado, dhaawac cunteed baa soo gaarhaya. marka caalamka lacagta leh iyo kuwa laga yaaba in lacagta ku yar tahayba inay iskaashadaan ayaa culayska la saaraya. oo weliba shirarku mararka qaarkood faa'iidooyin badan bay leeyihiin. qasab wixii bay dadka xusuusisaa, dhibaatadii jirtay xusuusataa. shirkadaha Soomaalida ee waaweyn waxaan aragnaa inay wax badan ka qayb qaateen marka ay dhibaatooyinka dalka ka dhacaan, sida marka ay fatahaad dhacdo, abaaraha oo kaleeto, iyo guud ahaan kaalmaynta dadka
danyarta ee tabarta daran markaad ay timaado in xagga horumarinta oo dadku cagahooda isu taagaan arrintaa wax ma ka qabataan waa run shirkadaha soomaalidu de horta caalamkii la mid yihiin annagu dahabshiil haddaan ka hadlo shaqan waddanka ka abuuraa intaanu awoodno lacagahan dibadda ka imanaysa lafteeda horumarkay ka qayb qaadato dadka qurba joogga ah qof walba jooga waddankiisa iyo dadkiisa inuu lacag gaadhsiiyo qaybaanu ka qaadana mashaariic laydhka jaban ama tamarta ah oo dadkii wax u fududaynaya waanu gelaynaa waxaasoo dhan waa horta waa ka hortag maaha ka dabatag inuu qofku isku filaado inuu dhaqaalihiisa abuurmo laakiin haddana baaxaddan guud ee adduunka ka socota ee ah dagaalada soconaya hawada isbedelaysa waxaasoo dhan wax shirkado kaliya wax ka qaban karayaan maaha sababtaasaa shirkan dowladda u k ay u furtay oo ah shirkadihii gaarka ee brivatka hay-adihii samafalka ahaa dowladihii kuwii lacagta haysay iyo kuwaan haysanba inay gacmaha isqabsadaan cabdirashiid maxamed saciid maamulaha shirkadda dahabshiil ayuu kaasi ahaa oo aadan saalimiin u waramayay